dadnimadii okay iyo nafsanimada ma gadan karo ma iibsan karo yow adiga waxaan maqlay tiimkii baa lagaa saaray ma jidha arrinkaas ma anaa waxaa dhahay video idinlama duubi karo aye haddaadan nala duubayn waxaa la yidhi dee cid kale maxaa la sheeg lama duubaysid dadku youtuberada malaysia joogana kulama duubayaan justii waa usii sheegaynaa waay ma fahan aye marka saasaa jirto nolosha malaysia taala waa sida hadda aad arkaysid waay may maqlaysaa ha yow hal mid baan kuu sheegayaa ninka inaayaan socdaalow ha qadkaa niyow guduud iga ah marka ii dulqaado niyow mid baan kuu sheegayaa niyow hal mid samee saaxiib okay hal mid same niyow ii sheeg dadku waa iska ii sheeg qadkaa niyahow niyow ii sheeg dadka halkaa gisi iska buuxiyeen niyow socdaalo may maqlaysaa niyow hal mid baan kuu sheegayaa niyow hal mid baan kuu sheegayaa niyow waa la halkaan tiim baa ku jiray waa laga saaray niyow fiiri qof bila aadana hadda ninkan asal xaajiyow shalay baa wada shaqaynaysa soo maaha qofka ku dulmiyey ma asal xaajiyowba mase waxa weeye tiimka meeshaa jooga horta yaxbulow aan kala qaadno aye aniga waxaan diidanaay oo meesha jiran kuu sheegaa aniga asida inta u tagaa waxaa idhi waxyaabaha waa i dhibaayo oo maqalba iga daa waxyaalaha kudhibi waa maxay adiga lagu saaraya macnaha waxyaaba xadka ka baxsan baa dee haa sharaftii karaamada sumcaddaada lagu ciyaaraa cid ogolaanaysa maa jirta qofkii damirlaa waa ogolaan kara aye ha adi soo ma jiro dadnimadaada iyo damirkaada wuxuu diidan soo ma jiro oo aad ka dhidhisay ay mudan tahay oo waajib ku saaran ay tahay kolley niyow mid baan kuu sheegaya arrinta dhaarta in lagu dhaartay oo lagu dilaya arrinkaa maxaa ka jira dee haddii lagu yidhaahdo adiga waxna lama tiid lacaga adeegsanaynaa maxaa dhiman wax alla waxaa rabnaa kugu sameeyanaa waay may maqlaysaa ha arrinta dhaarta ah horta niyow in lagu dhaarto in adoo codna been ka sheegayn ma jidhaa mase waa jidhaa maya dhaarta waa gooni laakiin haddii lagu yidhaahdo ana adiga waxna lama tiid xitaa lacag waan bixin karnaa haddii lagu yidhahdo maxaa meeshaas ka cad niyow liicaata masa okay niyow mid baan kuu sheegaya adiga in lagu dulmiyey in lagu dhaartay ma jidhaa mase ma jidho niyow waa lii dhaartay layma dhaaran labadaas u kala caddeen niyow dadka aniga waxaa la yidhi agteena waxaa ka matid waa kula loqon karnaa yaa ha waxaa la yidhi inaan lacag ku adeegsan karnaa xataa inaan lacag bixin karnaa xataa waa awoodnaa la yidhi ma fahan soo marka haddaad joogi weydo oo aad aamusi فارس baa wadaanu artaana birna adaa lagu leeyahay xaasid baa taa moogta صح marka waad maqlaysaa soo maaha waa ku maqlaya aad iyo aad
ما مقشا بلو ما مقليسا واكو مقلي ها نيو إثيوبيا maxaa ka qaldan Ethiopia war ها ma خدك qadka عادي iga xunno Addis Ababa jooga aniga dhankeyga way ma fahanti okay waa lagu maqlaa ee ku soco marka niyo waxa leeyahay dadkaas horta qalad waa gasheene sida wiilka yarka ibraka darba la leeyahay ilaahay aqliga uu siiyo ku soo fadhiistay youtube-ka hadda uu leeyahay aniga waa qaldamay gabadhaas walaashay waa ka qaldamay hal iga raali ahaada dee soo wada fadhiisto qaladkiina qirta meesha Soomaali waa maxkamade runta la isku sheegay social media waa maxkamad qalad yar hadduu dhaco Soomaalida dee saaxiib waa inda ku garaadlayaal dadka qaldan way arkaan qofka saxan way arkaan marka dee waxaan leeyahay kulligiin waa wada qaldanteene إلهي عفس ويديستا ومدنا دي عفس ويديستا دنبي آد قشانا مردن بهاو نقونينا ماليسي دادك بدانا عافماد وإمادان بريو حالي ذكربا إناد دادكي مرتي إديسو نقونا سفع عسو دويسان وحاس نمدا يستح سدح سنة كهر اللي تكون شيغي اسكا سارتان هدا إذن هايستا ميدا كلا الرواية هدا لو ودوضان اسكا دايا قفل بهاد الرواية وصميسانا يا مفانت قفل بهاد الرواية وصميسانا يا مفاميسين قبل اسولاشينا وسفع عنو تعسيية ووضا فريستا ووضا تاقا دالكينيو جوكتا Soomaalidana raali gareeya laan dheernimo li aato meel maqashaa saaxiib waan ku maqlaya walaalkay iyo saddex laba sano ka hor miyay ahayd iyo markaa ka hadlaysay anigu waa arkay ma ogtaa fahmaysaa may qof walba xalalna liisoo wada qorayo marka niyahow horta niyahow wax Soomaali wada aragtay Soomaalidu waa taqaanaa li aatow hadday markuu wada arkaan waa soo ku arkeen 20 kun qof ama 100 ama 100 kun qof hadii hal markuu aragto waxay ku arkeen wax yar ma aha hadda fiiri dad baa waxay raadinayaan ma taqaanaa qiilka ay raadinayaan ma taqaanaa waa dareysana soo hadda ku leeyahay ruwaayad iska daaya alla yaab qiilka ani hadda fiiri shalay markaan leefka soo galay ma aragtay waa barnaamijka ka hadlay billahi tulam cidda qori waysa gabadhaas hadda walaasheen qabiilka ay tahay waxay tahay anigu kama wada qabinba ma fahamsaa gabar Soomaaliyeed oo barnaamij ku dhacay oo halkaas ii sheeg lagu dulmiyay baan ka hadlayay moogta marka dad baa rabaa inay dad xuno niyahow ii sheeg baa inay wixii wax kala ka dhigaan war waa Soomaali weyn oo dhan baa gabadhaas garab istaagtay dadkaasna waxay yihiin waa la sheegay waan la cadeeyay inay dad daneesayaal ah oo kaliya halkaas ii sheeg muxuu ahaa dulinimo iyo axwaano u fadhiyihiin oo qofka walaalkood ah hadda ninkan halkaas oo fadhiya oo socdaal ugu qoran tahay waa la shaqeyn jiray waa nin kii adiga hadda kii ooyso adima ooyay socdaalow socdaal way la soo hadlay socdaal arrinkiisa asaa nin raga weeye asaana ka bixi kara dadaalkiisa ugu bixi kara hadduu caajis loo yahaan hadda halkiisu fadhi karaa ma fahanti laakiin nin dadaal badan hadduu yahay waxaas oo dhan wuu dardari karaa wuu dardari karaa socdaal horta niyo hal su'aal baa ku weydiiyay adoo xumaa gahen hadda koor ninka waa milinka gaaray ninkii ooyihiisu adi maahan ninka saaxiibtinimo darteed de waa la raba Soomaali aniga qof kastoo Soomaali la rabaa aniga inuu guuleysto war hadda fiiri yaxbulo wiil inanka yarka ibraka darba loo gees u wareegaa la magaalada gees u ka degay meel gees u ka dagaala ibraka darba saakana hadda yarta hurdo markaa ka soo kacnay video arkay soo dhahay waa qaldamay walaashi hadda koor youtube-keeda waa ka soo muuqday xaaladeeda waa la socday intii ka dambeysana waa buuqan waay duwaana qaldamuu dhama fahmaysaa Soomaalina ka qaldamay gabadhaas hooyada ah waan ka qaldamay dee raali garaan qurux badan oo bixiyay ma fahanti dee walaalayaal wixiina waa la idin jeedaay ummadii dhan ay idin wada jeedee dee qof walba raali garaan toos ha bixi gabadhaas walaashana intay meesha joogtana garab buuxa la sii ما يدين حمي انت اسوي ليه عطوا مقلصه صاحب نيو موقتاي ما انت دن موقتاي hadii la iska hadlahay haan bixin moogtahay Soomaaliyeed dhan hadda way ogaatay ninka dhalinyarada hadda hoos jooga adoo hadda talaasisay asaga meeshan ragnimo iskaga bixi karo waa sax yaxbulo ani qadka ay go'ay live ka haleenaya qadka ay go'ay waa ما قد كان عاد ku maqlaya saaxiib li aato hal mid baa saaxiib aniga qadka ay go'ay yaxbulo hoosa ka daawanaya hal su'aal baa ku weydiinaya li aato adi dhan baa aato inta degan hal su'aal baa ku weydiinaya ma maqashaa aysa niyo hal su'aal baa ku weydiinaya waa ku maqlaya niyo adiga marka waagi Malaysia tagtay waxa kala kulantay noo sheegay ka dhacdo raaliga bismillaahir rahmaanir rahiim yaxbulo adiga arrinkaas waa waaweyn yahay
ragnimadeedaan uga soo maya dee baxay walaa la gacay inta qof aan caawin karana oo waayo wixii ay banaanka yimaadeen oo wixii hadda saaxiib dee fiiri soomaalidan dee hadda u bayaanisay inaad dee si caadi ah u sheegtid saaxiib oo noo sheegtid baa jeclaan lahayn adoo raalliya yaxbulo horta gacmaha ligama haayo afkana igama xirno kowdhe dee aniga halkaasi wixii aan kala kulmay anigii ragnimadeeda ugu soo baxay ma fahmaysaa hadal qurux badanna waa u reebo iska daaya ay xaasidnimada soomaalidana waa u hoosgeliyey waan u sheegay youtube dib haddii looga laabto xitaa waa la helayaa waxay aad weliba u yaqaanaan saaxiib dhoola caddeynta waa lagu dhoola caddeynaa gadaalna waa laga cunaa ma fahamti exactly waa ku raacsanaa I agree with him lii waa ku raacsanaa marka inaa haddeertaan yaxbulo hadda aniga hadda maleysi ma fadhiyi nin cabaadaya ma ihi dee sidii laandheernimo saaxiib waan soo baxayo geesaan ka dego guri magaalada ugu weynaayaa degayo inta qof aan garab siin karno waa soo garab siiyo inta qof oo la cilciili karo ani aan arkana garab waa soo siiyo war shaqaystaa iri nacalla hooyadiin ku yaala shaqaysta oo dad fiican noqda dee dadkii saaxiib kulligood lafihii oo dhan ba cudur baa ka galay xaasidnimaa ka gashay ayagoo dhan ba xaasidnimaaba lugaha ilaa madaxa xaasidnimo ka gashay dee anigana dad waliba wada cadow oo wada nuuc kalaayo laisku wada qoslayo oo aad u jeedidoo lisgoosgoosanayo kuma dhex noolaan kari saaxiib ragnimadeeda ugu soo dhex baxay halkaasaan cerkaas ugu sii dhegay inaan haddeertaan dib ugu laabto iyo aan dad eedeeyana daba qurux badna waa ayaga iyo maanta haysataa soomaali oo dhan ujeedo dee maanta haysataa ilaahayna cafisaa weydiistaan gabadhaas walaasheen ahana ee ilmaha yarkaa ka dhintaan cafisaa weydiistaan hadda kadibna dad toosan ha noqdaan hadday noqon waayaanna soomaaha dee soomaali waa maxkamad saaxiib waa suuto wada miiran weeye ma fahamti waa shamsigooda ha ku qaadaan ma fahmaysaa qofkii annaga aan jecelnahay aan leenahay qofkaan wuu saxan yahay koraan u qaadayna qofkaan qalad yar iyo kibir aan ka dareennaane annaga soomaali haddaan nahay isla weynidu waa necebna runta haddii laga hadlo dee qofka isla weyna saaxiib dhulkaasaa keennaa shalab annaga kor u qaadnay aad iyo aad niyow lii caatow aad baa mahadsantahay saaxiib niyow anigu hadda su-aasha waxaa ku weydiiyey macnaha jooska haddaad macnaha haddaad faahfaahin kadhid iyo haddaad faahfaahin karinba aad baa u mahadsantahay saaxiib niyow nin weyn oo macquul ah oo halkaas social media laga yaqaano oo muddo kusoo jiray baa tahay ma fahmaysaa qof kastana hadalkiisa nin ciilan baa fiiri yaxbul oo ku hoosgeliye nin ciilan oo weli meeshii jooga baa wax faahfaahay laakiin nin ciilan ma ahi ilaaha baaba ciil iga takoorayba ma fahmaysaa ma socdaal baa ka wadaa waxa adiga yaxbul oo idin dirnida ما واحد سؤال بقى ماشي horta li yaxbulo socdaalo ninkaa dhalo kuu jibinaya ma ujeedaa dhalo ii jibina ujeedaa maya dabixi baa hoos dhigtay annaka bad baa iska leexiyey maya socdaal wuu kula hadla dee fiiri yaxbulo horta inaguweyninimu iska daa socdaal wuu hadlay socdaal nin rag weeye wuu soo fadhiistay 4 kun baad daawanaysa waa liga gardaran yaha waa ligu gardarooduu ku yiri wuu hadlay hadduu youtube u baahan yahay 24 saac uu soo duubi karaa farsamadii wuu leeyahay wuu ila soo hadlaa socdaal soo ilama soo hayso ima soo wacin ha of course waa isla hadalnaa ha socdaal way soo wacaa aniga wuu ila sheekaystaa fikradaan siiya niyo saan yeel niyo cadaab ku jirta cadaabta ka bax cadaabku ma jiro yiri saaxiib aniga hadda u baahana youtube yiri haddeertaana soo fariisan karaa haddeertaana waxaa doona ka hadli karaayo haddeeraan shaqaysan karaa ma fahamti marka waxaan dib kugu celinayaa ereyga waxaan ku leeyahay waagaas haddaan micnaha ciilalaan lahaa oo nin ciilan aan ahaan lahaa dee waa hadli lahay nin ragnimadiisii meel ku maraan ahay ma fahamti socdaalna nin ciilan ma ahan hadduu soo jeesto dee nin raga oo meel muruu noqonaya ma fahmaysaa yaxbulo aniga waa ka dhiidhi mana yiraay mar asbaaqi mashaan ka xiga yow lii caatow ragnimadana wax ha socdaal masuul lii caatow maqlaysaa oo ku maqlaya yaxbulo yow ninkaa dhalinyaraha socdaal nin saaxiibkaaga weeye niyow oo dee waa ka warqabtaa inaad waxaan kaa codsan lahaa dee idinka aniga youtubeka aniga tiktoker baa youtubeka shaqa kuma lihi ma og fahmaysaa ma si fiican nin socdaal waa wada hadal waxbaa kuu qariya socdaal waa wada hadal garab qaban niyow socdaal waxaan ku iriya haddaan rageed tahay oo dadaal badan tahay cid ku caawiso wallahi inaad u baahnayn keligaa meel iska soo saari kara hadda muxuu meel iska soo saaraa wuxuu leeyahay ma taqaanaa lii caatow waa lii dhaartay haddaad soo baxdid waa ani malaysian joogo waxba la iskaga qaadi maayo taad ma fahantay ani horta handidaad ma qaato ku cagjuleyn ma qaato wixii aan imaraynin ama sharaftiida karaamadiisa sumcadeeda meel ugu dhacayna
aniga waa ka hadlaa waana iska qabtaa ma fahant xaq baan taas u leeyahay ummadda Soomaaliyeed noo wada aragtaa waxa waaye horta waxa la daacadnimo horta ma gowdo kow ma fahant baadil xaqna way kala bayaan yihiin ma fahant yani xaqi baadil kala saaran marka Soomaalida dhanna way u jeedaa waa la wada arkayaa waa la wada daawanayaa ma fahant waxaa la yidhi xaqana feeraho ka dilaaca ummad waa u jeedaa way wada arkaysaa wax loo wada jeedo waaye haddii ay ku sii socdaan saan ay magaagan ay wadaan ay ku sii adkaystaanne dee Soomaali way shaqaysanaysaa waa shamsi ku wada qaaday ma fahant aad iyo aad marka ayaga iyo Soomaaliya badan marka haddii ay ka toobad keenaan ay ka waantoobaan ay dhahaan anaga waa qaldoonna ma qaldam waa ilaahay waaye dadkayniya tihiin waa qaldoonnay gabadha waxaa waa inaan u tagnay ahayd hadday mas-uuliyaddaas qaataan waxaa waaye sidii shalay loo ahayaa loo ahana ma fahant sidii shalay loo wadaa socdaalo hadda mid aniga hadda makuu sheegaa liicaatan aa kula hadlaya niyahow adiga Soomaalina maanta halkaas 4,600 baa ku daawanaysa niyahow dadkoo dhan garabkaaga taagan yihiin adiga hore u soco YouTube-kaaga duubo waxaaga soo gasho dadkaas awalba Soomaaliba daawata meesha gaarsi adiga Soomaali waa ku daawanaysa meesha gaarsiinaysa baqdintaani qalqalkaas ka daawaa la dhaartay ma jidho walaa la gacaliyo qofkii ku dhaarta wadan sharci la joogta waa la dhaartay socdaalo wadan sharci la joogta abu adiga wadan sharci la joogta wadan dawlad la joogta wadan dawlad la joogta ma codkii waa la maqlayaa waa maqlaysan Soomaali xublo of course maqlayaa wallahi socdaalo wadan sharci la joogta shaqaysa saaxiib waa la dhaartay dib waxas meel iska dhig ma fahmaysa war cad waaye cid ku qaldami karta ma lahayn aad iyo aad meeshaan Soomaali lama joogo oo wixii la iska sameeyay ma fahant يحبلو هالكيدا كسي وضع هذا Soomaali waa ogtaa sharci nidaamka kala dambe kama jirto qof wixii rabaa lagu sameeyna ma Soomaaliya cid wax ku sameyn ka dhaa bareer inta u timaado dil ka dhaa qof leeyahay ku sameyn kara de umada la leenayo oo ma arkin miyaa xaq darada lagu dilay may waxa dhacdaa dad shacab baa qof isku miidaamiyay laakiin qof intuu soo ordo qof ku dhaarto walaa la ku dilayaa de hadduu dharag u dhinto qofkaas dilay laakiin qof la isku dad shacab meel jooga oo isku miidaamiyay waxaasiyo anagu ka hadlayno laakiin qof intuu qof u yimaado maanta qof intuu soo wacnay ma dhigi karo waa ku dilay ama ana qof ma dhigi karo waa ku dilaya hadaa dhaho de qofkaas de waa ku duubanaya bari kama recording fahamisa adiga qofkii ku dhaho waa ku dilaya oo ku dhaho waxba ku sameynaya in aad gacaliye runta ku sheegayay hebel baa saa iridhe hadaa la aamusid de adiga ku dhibaysaa adiga ku taala sida sax aniga lama aamusin aniga waa sheegay waxa waa ibr maxaa ugu qoran de inuu degistiga waa buuxa dhalinyaro sida waraama maqlaysaa ayaxbu ibra soo qabo maxaa ugu qoran ibra ka darba ugu qoran ya ibra ka darba okay daniya waxaa maxay tahay meeshaan 2 milyan qof baa saaranay inuu dhalinyaro hal mar de inaad dhaarshay baasha de wixii dhan ba adkaaday inuu shaashada garaaca mar idin koraaliya ii sheeg soo qaadi waayay sababtu ah gistiga buuxay saa daraadeed ba u soo qaban waayay haddaan gistiga xiranay wareer bay noqonaysaa idinka meesha ka baxaya mar labaad lama imaan karo meesha niyo dadkaan maxaa ka qaldan de wallahi Soomaali waa gob la dheernimo niyo ibra ma saarna de walaa la gacaliye aad iyo aad ninka ragga ciil cadaabka dooray niyo is adkee hore u socon niyo keep going niyo maxaa la baqaysaa niyo shalay haddii lagu saac walaa lagu deeriyey dee maanta adiga wax samayso youtube-ka meeq u maraya subscribe-ta 45,000 45,000 niyo 45,000 hadaa haysatid walaa la gacaliyo hore u soco waxaa arki doontaa bil ama 2 usbuuc ka bacdi adoo gaaraya 100,000 wallaahi bilaahi haddaad hore u socoto saaxiib hore u soconniyo ibra masaarayn ibra maxaa ugu qoran dee ibra kadar maa ugu qoran ha ibra kadar baa ugu qoran de ibra kadarba maba saarnay niyo dhalinyaro idinkoo raalli ah
idinkoo raalli ah baan idinkoo raalli ah idinkoo raalli ah inkaas dhalinyarada ah soo qabto haddii kale soo maaha adkeynta naga daayay aniga waxaan naga codsanayaa gabadha walaasheena 160 bay maraysaa falowgareeya ay sheeg subscribe u saara aad iyo aad gabadha walaashana ka badan u qalantaa intaas malyan iyo ka badan malaayiin u qalantaa wallahi wari adiga gabadha muu tagtay muusuf tacsiisay ani gabadha waa u tagay waa u tagay wallahi billahi taala saaki ilaa ani markaan saaki aan waa bariga aan soo kacay ilaa 5 saac wallahi billahi taala waa murugeysnaa ilina cili way ilin aad ugu xumaaday waayo waa hooyo way maxaa la ishay way ku soo rafaaday way ku soo silicday inta ay ka martay hooyo waa taqa hooyo waa garan kartaa moogtahay hooyo waa baar wax dhala waay niyow samsam official baa u qoran soomaha wallahi gabadha maxaa u qoran waraa youtube gabadha ya youtube-ga samsam baa u qoran samsam official ha dhalinyaro samsam official baa u qoran idinkoo raalli ah niyow mid baan ii sheegaya shalay dad ba kuwa waxay damcayna dhahaan yaxbul gabadha qabiil ku difaacaya shalay markaa soo gelay gabadha qabiilkeeda walaahi aan aqoon markii Soomaalidu waa aqaanaa markii wax dhacaan qalta caarifu sax weey dib baa ka ogaadaanu de wax kasta ay tahayna waa gabar Soomaaliyeed walaashii shalay garab taagay maanta garab taagan qof kasta Soomaaliyeed gabadha jamaa ma joogtay wiilka bariir jooga iyo wiilka Hargeysa wiilka gacan jooga war kulligaan waa isku mid fahamsan qofkii iyada laga gala meesha difaacina durtaan ii sheegay kuwa waxa dhahayana ayka u taala maxaa ay galaan ma qof aniga macna wax iga bedelaya niyow may maqlaysaa niyow yaxbul shalay maanta markaa idifaacaysay oo maxaa la isheeg aad qaladkii aad u jeedo aad arkaysaa dhehaysid socdaal waa la dulmiyey waa laga gardaran yahay socdaal